Ma rabtaa jir qurux badan oo nadiif ah haddana jileec ah sida beebiga oo kaleeto? Hadday jawaabtaadu haa tahay, daawo fiidiyowgan bilow ilaa iyo dhammaad. Alxamdulillaah, mar walba Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. Qaaliyaati weli waxaan ku guda jirnaa maalmihii ugu khayrka badnaay ee bisha Dulxija. Kuwii ka faa'iideysta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. Waxa kaliya noo dhiman waa 3 maalmood. Badiya takbiirta tahliisha digriga Allah subxaanahu wa tacaala, saliga nebiga Allahumma salli calaa sayidina Maxamed, iyo camal walba oo Allah subxaanahu wa tacaala ugu dhawaanaysid oo kheyr ah ha yareysanin insha Allah biidnillaahi kariim. ka faa'iideysta. Allahumma balliqna yowma carafa, aamiin yaa rab. bismillaahi alfataaxi alcaliim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alkariim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. qaaliyaati soo dhawaada, kusoo dhawaada qalbi furan. haddii aan ugu cusub tahay soo dhawow, kusoo dhawow qalbi furan. Channelkan waxaa lagu soo gudbiyaa nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala arlada soo dhigay, isqurxinta dabiiciga iyo rutiino iyo waxyaabo kale oo badan oo faa'iido leh. Channelka waxyaabaha lagu soo gudbiyo haddii aad ka heshay ama wixii seenaysid, fadlan channelka subscribe saar, gambaleelkan furo sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco aad u naqatid daawadaha ugu horeeyo. haddii aad jeceshahayna inaad ehelkaaga asxaabtaada la sheergareysid, la sheergareey. inta qof aad jeceshahay ku casuum insha Allah. adaa u mahadsantihiin dhammaantiina, waa mahadsantihiin inaa idin dhoone marnaba kama daalay kamana caajisa. man laa yashkuri naas laa yashkurillaah. asxaabteyda qaaliga, maanta waxaa rabaa inaan ila wadaago maadaama ay ciid soo dhowdahay, sida jirkaaga jir qurux badan aad uga dhigi kartid oo haddana xariir ah oo jileec ah. talooyinkan haddii aad ka faa'iideysatid wax badan adiga ayaa arki doona jirkaaga siduu isku bedelo. ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay. qodobka ugu horeeya waxaa waaye markii aad qaweysanaysid in aad ku qabeysatid biyo kulul oo jirkaaga xamilayo, maqaarkaaga yacni ku gubeynin, inaad isticmaashid ilaa muddo 10 daqiiqo. 10kaas daqiiqo jirkaaga wuxuu ka caawinayaa in uu jilco, sidoo kaleetana uu furmo dulduleelaha, sida markaaseeti waxyaabaha kaleeto uu u qaabilo oo jirkana si fiican uu kuugu nadiifsamo. qodobka labaad waxaa waaye scrub. 10 daqiiqo kadib markii biyaha kulul aad ku jirtay, waxaa sameysanaysaa scrub. scrubka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. jirkaaga wuxuu ka qaadaya maqaarkii dhintay, wuu nadiifinayaa. scrubka ugu fiican waxaa waaye scrubka sokorta iyo kofiga la isku daraayo, kadibna saliid lagu qasayo, kadibna jirkaaga aad ku masaajeynaysid. asigoo diyaar dukaamada waa lagu gadaa. haddii rabtidna scrub alla scrubka rabtid markaas adiga aad jeceshahay ayaad isticmaali kartaa. scrubka aad uu muhiim u yahay, sida jirkaaga dhan maqaarka dhintay, dhiiga wareegta kulli uu usoo dhaqaajiyo. kofeyga wuxuu ku fiican yahay xitaa jirkaaga haddii aad sii daa'imatid dildilaaca jirkaaga hadduu lahaay wuu kaa baabi'inayaa. qodobka 3aad waxaa waaye in aad jirkaaga saabuun aad ku dhaqdid. saabuunta ugu fiican waxaa waaye xamaam maqribka. xamaam maqribka saabuuntiisa runtii aad iyo aad ayay u fiican tahay. jirka way ku cadeyneysaa, wasaqda dhan ayay ka nadiifineysaa, maqaarkii dhintayna way kaa qaadeysaa. haddii aad saabuun xamaam maqrib haysanin, saabuun alla saabuunta haysatid isticmaal. sidoo kaleetana shower jelna waa isticmaali kartaa. qodobka 4aad waxaa waaye in aad jirkaaga xoqdid. waxaa jirka lagu xoqaa waxyaabo oo loogu talagalay. marooyin ayaa jiro amaba geeda gacmaha la gashto oo jirka lagu xoqdo. kuwa ugu fiican waxaa waaye midka marookaanka iyo midka kuuriyaanka ee maalmahan lagu kacsan yahay. kaasna wuxuu kaa caawinaya markii jirkaaga scrubka iyo saabuuntii aad soo marisay kadib oo aad ka dhaqday, jirkaaga wuu jilcay, wixii wasakh dhan ku hartay dhanna wuu kasoo nadiifinaya. markaasuu jirkaaga dhan wuxuu noqonayaa xariir jileec sida baby yariis hadda dhashta oo kaleeto. qodobka 5aad ee ugu dambeeyo uguna muhiimsan waxaa waaye markii aad qaweyska dhameysid, muhiim waaye jirkaaga in aad moisturizing ku sameysid amaba kareem aad marisid, kareem ama saliid. haddii aad kareem isticmaaleysid, kareemyo badan oo aad u fiican ayaa jiro, sida kareemka babaayga, sida kareemka girsiliinka
ama inaad isku qasatid oo isku darsatid, amaba sidoo kaleeto baby lotionka, kareemka oo babyga isticmaali kartaa. Iyo aniga badanaa waxaan jeclahay saliida ugu fiicanna waxaa waaye saliida babyga jirkaaga waxay siinaysaa caraf, sidoo kaleeto jileec ayay ka dhigaysaa. Haddii aad jirkaaga oo soo qabeysatid oo keliya oo wax walba aad soo marisid oo haddana kareem aan marinin, jirkaaga qaleel ayuu sameynaya. Markuu qaleel sameeyane maqaarkii dhintay jirkaaga wuu ku badanayaa, kadibna jirkaaga wuu madoobaanaya. Marka sidaas darteed muhiim waaye in aad jirkaaga markii aad soo qabeysatid oo qabeyska aad soo dhameysid in aad kareem, saliid, wax alla wax aa markaas adiga jeceshahay aa marsatid. Sidoo kaleetana jirkaaga haddii aa rabtid caraf oo waqti dheer inay ku heyso, waxaa sameynaysaa jirkaaga waxaa soo qaadanaysaa boorbaraha babyga, waa ku bilbileysaa, kadibna saliida ama kareemka ayaa marsanaya, kadibna jirkaaga waxyar barfuun ayaa ku buufinaysaa. Markaaseeti waqti dheer ayuu carafta ku heynayaa. Dhar alla dharkaa xiratid dharkaaga ayuu xataa kasoo carfayaa. Marka haddii aad jeceshahay jir qurux badan oo nadiif ah oo cad oo wax qalad u lahayn, ka faa'iideyso talooyinkan. Sidoo kaleeto haddii aa aroosad tahay aad iyo aad ayuu ku anfacayaa. Sidoo kaleeto hooyooyinka umulay iyo qof walba oo jecel jirkiisa inuu u qurux badnaado, khaasatan maalmaha ciida, aad iyo aad ayay muhiim u tahay qofka naftiisa inuu si fiican usii xanaaneeyo sida jirkiisa markaaseeti uu qurux ugu noqdo. Quruxda keliya maahan in aad wejiga keliya iska cadeysid ama iska rugtid, jirkaaga oo dhan waa in aad qurxisaa sida markaaseeti uu isugu ekaado jirkaaga oo dhan. Laakiin haddaa dhahdid wejiga la iska cadeynaya korka meelihiisa kale aadan xanaaneynin ama aan nadiifinin, sidaaseeti markaas jirkaaga xitaa asiga ayaa isdiidayo in uu isku kalar noqdo. Marka jirkaaga mar walba inuu isku kalar ku ahaado ku dadaal. Muhiimada ma ahan cadaan, waxaa muhiim jirkaaga inuu ku dhalaalo uu ku qurux badnaado. Dhammaan talooyinkan asxaabteyda qaaliga ah aan idiin soo sheegay, haddii aa rabtid isbuucii hal jeer ayaa sameysan kartaa. Haddii aa rabtid labadii isbuuc hal mar, haddii aad intaas dhan ma awoodid ama ma ka gaari aa dheheysidne, bishii hal mar muhiim waaye inaad jirkaaga sidaas aad u nadiifisid. Markaas kadib mar walba waa qabeysanaysid, shaawar jeelkaaga ama saabuuntaada keliya isticmaaleysaa, ama isbuucii hal jeer scrub ayaa ku sameynaysaa. Laakiin muhiim bishii hadday ugu yartahay bishii hal mar inaad jirkaaga sidaas aa u nadiifisid oo wasaqdii iyo wixii dhan oo iyo maqaarkii dhintay dhan si fiican uu ugu soo dego. Insha Allah biidnillaahi kariim. Waa rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin videogeena maanta. Daawashada aad daawanaysiin waa ku mahadsantihiin. Jazaakallah khayr ayaan idin leeyahay meel walbo adduunka ka joogtiin. Ilaahay ha idinku xifdiyo. Aada u mahadsantihiin. Fadlan like-ta hanaga iloobina, siina share gareey sida dad badan ay uga faa'iideystaan. Haddii aad su'aal qabtidna qaybta commentiga iigu soo qor. Inta aan video lamid ah ku kulmeynana waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo amaana Allah.